شهدت مدينة لارناك الاسكتلندية بيع أغلى خروف في العالم بمبلغ يقارب $500,000. السلام عليكم. halkani waa kanaalka daruuraha. imsaad isleedahay waa lagu iibsaday wankii ugu qaalisanaa adduunka. muuqaalkeenna maanta waxaan idinkugu soo gudbinaynaa lacagtii tirada badnayd ee lagu iibsaday wankii ugu qaalisanaa adduunka. dalka sheekadan ay ka dhacday halka uu wankani lacagta badan lagu bixiyay ka soo jeedo iyo wanka la iibsaday waxa uu wananka kale ee caalamka kaga gadisan yahay. inta aanan muuqaalkeenna gudagelin fadlan like saar si taasi ay nooga caawiso in muuqaalkani uu gaaro dad badan ama share u dheh saaxiibadaada kale ee Facebook. mahadsanid. wankii ugu qaalisanaa caalamka ayaa lagu kala iibsaday suuq xoolaad oo ku yaala magaalada Lanark ee waddanka Scotland. waxaase yaab noqotay lacagtii lagu iibsaday wankan 6 jirka ah oo gaaraysay 367,500 oo ganiga sterlinka ah oo u dhiganta $490,625. wankan oo loogu yeero laba diamond ayaa waxaa iibsaday 3 nin oo beeraley ah oo uu xiriir ka dhaxeeyo kuwaas oo aqbalay lacagta lagu iibinayay oo markii hore ka bilaabatay $10,500 oo u dhiganta $14,000 Mareykanka ah. hase yeeshee markii dambe sicirka ayaa cirka isku shareeray. shabakadda Sky News ee waddanka Ingiriiska oo warbixintan sii deysay ayaa sheegtay in wankani loo aqoonsaday kii ugu qaalisanaa adduunka maadaama uu jabiyay rikoor hore ee u yaalay wankii ugu qaalisanaa ee noocan oo kala ah oo sanadkii 2009 lagu iibiyay $231,000 oo ganiga sterlinka ah oo u dhiganta $308,000 Mareykanka ah. mid ka mid ah raggii iibsaday neefkan oo la hadlay warbaahinta ayaa yiri inta badan dadka xoolo dhaqatada ah isha ayay ku hayeen wankan waayo waa mid cajiib ah. waan hubay in wankan lacag badan lagu iibinayay laakiin ma filayn in sicirku gaari karay $367,000 oo gani. waa xayawaan heer sare ah waxayna u badan tahay in farciisa ay sidoo kale heer sare noqon doonaan. ninkan beeraleyda ah ee wax ka iibsaday wankan qaaliga ah waxa uu ammaan kala dul dhacay wankan oo uu sheegay inuu la dhacay luquntiisa, midabka dhogortiisa, midabka ku hareeraysan indhihiisa iyo weliba addimadiisa. waxaa dhici karta inaad isweydiiso wankan qaaliga ah xaguu ka soo jeedaa. waxa uu neefkan lacagtiisu $500,000 ku dhowdahay uu farciisu ka soo jeedaa jasiiradda Texel waqooyi galbeed ee waddanka Holland oo ah jasiirad aad u qurux badan oo ay ku nool yihiin 13,600 oo qofood. arrinta kale ee yaabka leh ayaa waxay tahay in wankan cajiibka ah uu ka qaalisan yahay baabuurka Ferrari ee ay iibsadaan dadka taajiriinta ah kaas oo noociisii ugu dambeeyay ee Ferrari 812 Superfast uu qiimihiisu joogo $367,000 Mareykanka ah. haddaba wankan oo la xaqiijiyay inuu yahay kan ugu qaalisan adduunka ayaa sidoo kale waxaa si fudud loo oran karaa wankii ka qaalisanaa Ferrariga. waxaa intaasi inooga dhan muuqaalkii aynu kaga hadlaynay wankii ugu qaalisanaa adduunka iyo lacagtii cajiibka ahayd ee lagu kala gatay. haddii aad muuqaalkan la yaabtay fadlan like saar si taasi nooga caawiso in muuqaalkan uu gaaro saaxiibo kale. aad ayaad ugu mahadsan tahay la socodkaaga. daruuraha